Qaraha ama xabxabka waa miro aad faa'iido ugu leh jirka, waana miraha ugu biyaha badan inta la og yahay. Waxaana lagu qiyaasaa boqolkiiba 92 inuu yahay biyo. Saas ay tahay, waxaa ku jira nafaqo kala duwan oo jirka uusan ka maarmin, kuwaasoo kala ah fitamiin A, B6, C, E, iyo borotiinno kala duwan. Waxaa kaloo qaraha ku jira macdanta loo yaqaano potassium-ka oo unug walba oo jirka ka mid ah uu u baahan yahay. Qaraha kuma jiro wax dufan ah, waxaana ku yartahay maadada karbohaydraytka, sidaas awgeed laguma tiriyo miraha lagu cayilo. Caafimaadka iyo qaraha ama xabxabka. Caafimaadka wadnaha. Qaraha wuxuu yareeyaa halista wadne qabadka iyo unugyada murqaha wadnaha in ay duqoobaan. Waxa uu kaloo ka hortagaa xididada wadnaha ee subag ama dufan ku samaysmaan. Qoraal lagu daawacay joornaal dhiigkarka ee kasoo baxa wadanka Mareykanka, waxay cilmi-baarayaashu kusoo bandhigeen in qaraha uu yareeyo cadaadiska dhiigga ku dhaca dadka burburan. Qodobka kale, ka hortagga caabuqa. Qaraha wuxuu yareeyaa halista caabuqa iyadoo hoos u dhiga waxyaabaha ka qayb qaata caabuqa inay yareeyo sunta jirka ku jirto. Sidaa awgeed, dhakhaatiirtu waxay ku talisaa dadka qaba xanuunada riixa, rheumatism-ka, murqa xanuunka, iyo inay badsadaan cunista iyo cabista qaraha. Qodobka kale, fuuq celinta. Qaraha wuxuu ugu horeeyaa cunnada jirka ee sameeya fuuq celinta, maadaama ay ku jiraan biyo aad u badan, taasoo macnaheedu yahay in kelyaha iyo qashin-saarka aad ugu roon yahay. Waxaa kaloo loo adeegsadaa quruuraxa yaryar ee kelyaha ku jira ama kaadi-mareenka ku jiro inuu soo saaro, wuxuuna ka hortagaa suuxdinta kuleylka. Dheefshiidka iyo qaraha. Qaraha ama xabxabka waxaa ku jira maadada loo yaqaano fiber-ka ama buunshada loo yaqaano, taasoo dheefshiidka iyo mindhicirada caloosha u roon. Maqaarka iyo timaha. Maadada fitamiin A waxay u roon tahay kobcinta unugyada maqaarka iyo tinta, waxayna ka hortagaa jir qaleelka. Soonka iyo cunista qaraha ama cabista. Faa'iidooyinka kor ku xusan awgood, qaraha waxaa lagu xisaabiyaa miraha ugu horeeya haddii la heli karo lagu afuro ay fiican tahay, iyadoo ugu wacan tahay qodobka koowaad, qaraha oo oonka u roon iyo fuuq celinta. 2. Qaraha oo dheefshiidka u roon, caloosha iyo mindhicirada u diyaariya cuntooyinka lagu afuri rabo. Qaraha oo qulqulka dhiigga kordhiya, taasoo qofka ka heli karo nashaad iyo firfircooni, qaas ahaan salaada taraawiixda. Qodobka 4. Qaraha oo leh faa'iidooyin nafaqo jirka u baahan yahay.